nahay maanta inaan airportka caasimadda Puntland Garowe aan ku soo dhaweyno waftigan balaaran uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo maanta inuu kugu yimid halkan oo ka yimid magaalada Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waftigan oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo mudanayaal ka tirsan aqalka sare oo ujeedada safarkuna ka soo koobanay ay yihiin mudanayaashii iyo mas'uuliyiinta kala duwanaa ee guud ahaan dalka Soomaaliya wada matalayay gaar ahaanna ka soo jeeday Puntland haddana inay u yimaadaan shirka wada tashiga hadii la ahayd mayna kaga furmayo 15ka bishan magaalada Garowe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan idin leenahay soo dhawaada insha Allah hadal badan ma jiro waxaan halkaan u nimaadnay inaan soo dhaweyno wixii dambe iswaraysiina dib inoo noqon doona hadii la ahayd mudane wasiir soo dhawow adiga iyo waftigaaguba assalaamu alaykum wasiir waa mahadsantahay anigoo ku hadlaya magaca wafdigan balaaran oo sida aad sheegtay isugu jira wasiiro xildhibaano iyo senataro aad ayaan ugu faraxsanahay inaan sida fiican aad noo soo dhaweyseen soo dhaweynta fiican oo aad nagu soo dhaweyseen anigoo ku hadlaya magaca wafdiga balaaran oo sidaad sheegtay ka kooban wasiiro xildhibaano iyo senataro xildhibaanada aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka waxaan ku faraxsanahay oo kaaga mahadnaqaynaa soo dhaweynta fiican waxaan u nimid aan ka qayb galno sidaa sheegtay shirka wada tashiga oo xukuumadda Puntland ay nagu martiqaaday saa sheegtay war badan ma jiro waxaan se ku soo koobaynaa hadalkayaga inaan idin soo gudbino salaan aan ka wadno madaxdii qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu oo farta naga soo xiray oo ammaan badan u haya shacabka reer Puntland iyo maamulkooda oo bogaadin badan u soo diraya shirkana guul u rajeynaya waa mahadsantahay